iyadoo ay weli wado wasaaradda diinta iyo awqaafta ee Soomaaliland wacdigii bisha barakeysan ee Ramadaan ay u jeedin jirtay xarumaha wasaaradaha iyo laamaha kala duwan ee dawladda ayaa waxay maanta wacdi diiniya oo ku saabsan bisha barakeysan ee Ramadaan iyo fadaa'isheeda u jeediyeen shaqaale weynaha wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta wareyntina waxa halkaasi kelmado soo dhaweynaa ka jeediyay Axmed Abukar Maxamed agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta ee Soomaaliland waxay la weydiisana dhamaanteen oo caafimaad nagu dhameeyo إن كفاية سنة مركز عبادة بشهر بركة سنة رمضان عن سؤال إن علماء قيمة هي شرفت لها وقتها قال إن سوسيا إلهي بيسانك حسنات كأقدره وحن إذا قدر دار يكون شغالة كلمة ده قيمة بدنا نوردنا إن ولا نلقينا سيف عنو قلان culimada ka socotay wasaaradda diinta iyo awqaafta ee Soomaaliland oo halkaasi wacdi ka jeediyay ayaa u mahadnaqay kulankan ay ku qaabileen shaqaalaha wasaaradda warfaafintu iyagoo oo halkaasina ka jeediyay wacdi ku saabsan fadaa'isha bisha barakeysan ee Ramadaan gaar ahaana tobanka raxmadda ee u horeeya bishaasi habeenka bishu dhamaanayso wuxuu Ilaahay caafiya in Allah intii la soo caafiyay dhamaanba ayaa habeenka Ilaahay caafiya rasuulku waxa la su'aalay ma habeenka leeylatul qadriga nabi Allah habeenkaasi dadka badan caafiya ma wuxuu ruuxa shaqaale markuu foofo ee uu shaqada dhameeyo sida mushqaayadiisa loo siiyo oo kale ayuu rabbigii cadiimka marka bishii dhameeyeen khalqigu ayaa Ilaahay caafitaankiisii kaamilka ah u bixinayaa buu dhamaadka maalinta u dambaysaa bishna waa bishii caafitaanka waa bisha in la caafiyo la ogol yahay taas hadeen leenahay runtii aan ku soo urinayaa waa in isku caafina sida xaqiiqadu ay tahay iimaankan inugu jira waanu kobcayo wuu kordhaa waanu nuqsaama waxa uu ku kordhaa khayr oo dhan iyo wanaag oo dhan iyo daacaadka ilaahay loogu dhawaanayo iimaanku uu ku kobcaya wixii macaasi iyo dunuub qofku uu galana iimaankiisa ku nuqsaamaya gabagabadiina waxa halkaasi ka hadlay Khadar Maxamed Cakulle maariyaha telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo u mahadnaqay culimada ka socotay wasaaradda diinta iyo awqaafta ee Soomaaliland maadaama bil barakeysan oo Ramadaan ku jirno war qof waliba hammi buu leeyahay qof waliba meel buu socdaa adigu kaliya hammigaagu waa halkee hammigaagu ma jannada hammigaagu ma wuxuu ahay dunida muslimka hammigaagu ma ehelkaaga inaad naar uga digtaa ehelkaagu ma inaad dalkaaga uga digtaa ehelkaagu ma naftaadu inay cunto cabtay seexataa iska baad darajooyinka iyo kaalmaha kala duwan haddii hammigaagu yahay hammi janno waad guuleysatay haddii hammigaagu yahay dadka islaamka ah oo dhow aad xadiiskii nabiga xambaarto calayhi salaatu wasalaam waad guuleysatay haddii hammigaagu yahay in ehelkaaga naar uga digtay iyo dadkaaga waad guuleysatay iyo naftaada haddii hammigaagu yahay inaad cunno oonu cabno inu seexannana arrinkaas inuu dib loogu noqdo u baahan yahay qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda ayaa sidoo kale halkaasi culimada ku weydiiyay su'aalo ku saabsan bisha barakeysan ee Ramadaan halka isla sidoo kalena culimada ka socotay wasaaradda diinta iyo awqaaftu ay kutub Qur'aanka Kariimka u qaybiyeen shaqaalaha ka soo qayb galay wacdigaasi diiniga